السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت بدن فرحت باني دين رجعين أيام ميل كستو أدون كاد كجوكتان مقالك وحين كسو قادنا إن تمرتا أهنا لقوا قينو لكن هنتياد مهمة وأهنا تمرتو تهي عنتوين كان lagu cayilo kuwa ugu horeeya ama cuntooyinka qofku uu ku naaxi karo kuwa ugu horeeya ee cayilka iyo buurnaanshaha keeni kara hadii qofku uu si joogto ah u qaato oo uu si xiriir ah u isticmaalo qofku inuu ku cayili karo waliba cayilka dhakhaatiirtu waxa bay tilmaamayaan inuu mid saayid u badan uu noqon karo hadii qofku uu joogteeyo timirta waxa dhakhaatiirtu ay soo qaataan afar shay ayaa qofka ibn aadanka sida komanka waxa ay ku sababaan inuu cayilo ama in cayilkiisu uu saayid noqdo afartaasi waxay kala yihiin waa calories carbohydrate sugar iyo fat afartaas ayaa qofka waxay u keenaan inuu si saayid u cayilo saddex kamida ayaa timirta laga helaa afartii lagu cayilayay saddex kamida ayaa timirta laga helaa cuntooyinka kale hal cunto oo kaliya oo saddex shay ay iskugu tageen way yar tahay aad bay u yar tahay laakiin timirta saddex kamida waxyaabaha lagu cayilo ayaa laga helaa oo waxay kala yihiin calorieska oo ah unit of energy iyo carbohydrates iyo sidoo kale sugarka ama sonkoraha timirta saddexda shay oo aad lagu cayilo oo miisaanka qofka u keeni kara inuu si saayid u cayilo oo waliba si degdeg u cayila ayaa laga helaa timirta marka timirtu waxay kamid tahay cuntooyinka lagu cayilo kuwa ugu sareeya ayay kamid tahay timirtu waxaynu in badan ka sheekaynay inay faa'iido caafimaad oo aad u weyn leedahay waanay leedahay oo timirta faa'iidooyinkeeda caafimaad aad bay u badan yihiin ilaa hadda way socdaan daraasadaha caafimaad ee timirta lagu sameeynaya kuwa laga qoray ee inay tamarta iyo jidhka iyo nafaqada intaba u wanaagsan tahay oo waliba faytamiinaadka muuqaal hore inuu isku taagnay timirtu ay leedahay sida jidhka ay u nafaqayso iyo faa'iido jidhku ka qaado haddaynu ku soo dhawaano arrinta ugu weyni timirtu dhinac kale marka laga eego waxay ku gali kartaa positionka bariiska iyo daqiiqda oo timirtu xilliyada qaar qofka waxay u noqon kartaa cunto caadiya cuntada sida bariiska iyo daqiiqda iyo burka iyo cuntooyinka inta loo qaato in gaajada la iskaga difaaco ayay timirtu booskeeda kali kartaa sababtuna waxa weeyaan waxaynu niri timirtu waxay ka kooban tahay calories iyo carbohydrate kuwan bariiska iyo daqiiqdana iyo cuntooyinka kale ee inta badan qofka gaajada ka celin kartaana waxa ay leeyihiin carbohydrate marka booskana way u buuxin kartaa qofku cuntada laakiin timirtu haddii si joogto ah qofku uu qaato waa inaad xasuusnaataa miisaankaagu inuu kugu badanayo sababtoo ah mararka qaar waxa dhici karta qofku inuu iska shiido timirtii oo cabitaan ahaan uu isiraado waa cabitaan wax badan nafaqo u baad ka helaysaa ama jidhkaagu bay nafaqaynaysaa laakiin kuma cayilaysid aad baad ugu cayili kartaa timirta sababtoo ah saddexda aynu tilmaamnayba way ku jiraan timirtu dhinac kale marka laga eego jidhku uu u baahan yahay oo calorieskana waa uga baahan yahay carbohydrate-kana waa uga baahan yahay sokorta dabiicigaana waa uga baahan yahay laakiin haddii aynu joogtayno qaabka noocaasa ayay jidhkeena u samaynaysaa inay gaadhsiiso qofku inuu si saayidaba u cayilo ilaa cayil uu jidhkiisu markaa culays badan u qaadanayo ay gaadhsiinayso marka timirta xaddi macquula inaad ka qaadato ayaa muuqaal ku soo jeedinaya intaasan ku soo ururinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.